waan isbedelay waxaan noqday nin rag ah sababta ku noqday waxay tahay in aan xubinta taranka oo raga aan isku arkay hadda justi saacan waxa ahay nin waxaana isku arkay xubinta taranka anoo gabar ah sidee ku noqday nin rag ah oo aku yeeshay xubinta taranka ee qof hurday oo bini aadana oo dumar ah oo jiiftay baa ahaa laakiin maanta waxa ahay nin rag ah waxaan rabaa inaan idila walaago qiso halis ah oo igu dhacday taas oo aan rabo inaan dadka ku nool dunida dacaladeeda aan la wadaago qof walibana ilaahay haybad u gaaro siiyaa laakiin aniga mid aan haybad ii ahayn kulleetu waxay tahay aanan aqoonin inay qiso tahay kaliya u qaata ani habeenada ka mid ah waan iska seexday codkayga sidaa ku dareemaysaan waxaan ahaa qof dumar ah laakiin hadda waan isbedelay waxaan noqday nin rag ah sababta ku noqday waxay tahay in aan xubinta taranka oo raga birito qof kasto markuu ka hor imaado waa lagu caynaa qaniisa taa lagu dhahaa waxaadan ahayn laga aaminaa anyway qof waliba ra'yigiisu ka soo dhiiban karaa commentigan adinka iskala oo fasaxantii qofkii amaanayo iyo qofkii caynayo iyo qofkii ii soo duceynayo anyway hadda justi saacan waxa ahay nin waxaana isku arkay xubinta taranka qofka bini aadamka ana inta dunida ku nool wax walba uu arkaa sida aan isugu arkay iyo sida muxuu ahaa toole ee wax noqdeena waad ogaan doontaan anyway marka hore gabar ahaa markaan waxa xiran jiray markaa gabarta ahaa barnaamijkan inaan duubo markaa go'aansaday waxa igu soo dhacday inaan ka falanqeeyo ama aan ka fikiro anoo gabar ah sidee ku noqday nin rag ah oo aan ku yeeshay xubinta taranka ee ragga caqabad kastoo kusoo food saartana inaad dad kala sheergaraysid ama la ogaado maskaxiyanay muhiim kuugu tahay aniga waa wareeray stress badanaa maray waan walbahaaray dhowr bilood ka hore ahayd muddo waan cabursanaa alxamdulilah maanta way ii hirgashay inaan ka hadlo barnaamijkaas intana waxaan usoo fariistay inaa qof bini aadan aan muxuu ahaa toolay weydiisto aan weydiisto wax oo muxuu ahaa toolay caawinaad uma soo fariisanin qof hurday oo bini aadana oo dumar ah oo jiiftay baa ahaa laakiin maanta waxa ahay nin rag ah aynow sidaa ku noqda ani wax walbana waa qisadana waa la arkaa waxaan ahaa markaygii horeeto gabar qof dumar ah hadda waxaan ahay nin rag ah halkaas waxaan kusoo macsalaameeyey dumarnimadii haddana waxaa liigu soo dhoweyn doonaa nin raga inaa ahay